السلام عليكم أصحابتي cunto shidan jinaal kusoo dhawaada maanta waxay ka shidan tahay cabitaanka waxaa ka samaysan doonaa cabitaan aad u fiican ilmaha nafaqo u leh dadka waaweyn moos iyo waxaa ka samayn doonaa timir sokor yar ku darsanaya daarta sokorta waa iska dhigi kartaa bedelkeeda malaba ku darsan kartaa qashinka ka soo fiiq waa kaas daarabtina waxaa ku darsan kartaa sokorta daartida waa iska dhigi kartaa ayadana sokorta hada rabin si intooda isku shiidi kartaa marka waxaa ka samayn doonaa caano booro caanaha rabtaa ku darsan kartaa isticmaal kartaa ana hada caano booro iyaalo iyo waxaa isticmaalaa moos timir iyo sokor insha Allah intaas maanta samaysanayna cabitaan aad u fiican waaye asaga hadaa cunto xataa cunto kale waa ka maarmay ma garata hadaa cabtida biyaas barafka lehna waa isticmaalaynaa biyaas oo qabowga ah isticmaal doonaa insha Allah markaan waxa soo qaadan mashiinta wax ku shiida lahayn waa ku shubanaynaa nala socdo si fiican insha Allah cabitaan aad u macaan aad u qurux badan waaye ma garataan timirta iyo mooska iyo caanaha wax dhan hal mar ku shubanaynaa mashiinta kadib waa soo shiideynaa smooth markay noqoto caano balan ma garataan isla socod wanaagsan asxaabteyda ayaan taa cuntaa soo gelgelinaa maanta cabitaan ayaan kugu soo dhex tuuray subscribe dhaha kambalelka furta isla socod wanaagsan insha Allah biyo qabowga ku soo darsaday caano booraha ku daraya خلاص intaas isku soo shiidanayna waa isku soo shiidana waa batan saanay noqotay weelkaana ku shubanayna marka weelka soo diyaarsana ku shubanayna isla socda waaw saas ku soo baxda daarta biyaha waa ka yara kartaa adeeg noqonay laakiin hada saana ka rabay adeeg saayida ma rabin saana ka dhigtay waa wax yar aad u fudud aadna u macaan insha Allah